daawade ku soo dhawow channelkeena Sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe saar channelkeena gambalelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وعن ورق صاحب بيال ملك استوى الدنيا ذيك شوكتان كسر وهذا ما أنت يعياره ورح يسبضنا وعياره كسر سبان وساق هذا الدون وغيب كي هاي مانشستر سيتي يا ريال مدريد أو صد يارنا يا عيار توين تضبطك حلي بنزيما يا كيفين دي برون أي هبدو السمر يان هنشبات ولا وحن ساق هذا الدون ما أنت قضب أي غيب كيهين أوليغانا سولشر وحلا يا هاي والله صاحب بان نقول دعي عيارتي بانو soo helnay buu leeyahay Bruno ba ka dhacay meeshiyo ninka Bruno ba haya ilaa hadda maxaa laga yiri ciyaarihii shalay dhacay Arsenal oo laga yaabay yahay macquul ma ahan Bukayo Saka waxa uu dhigayo iyo qodobo kale oo waaweyn oo ciyaaraha ku saabsan iyo klibsigu ciyaartooga Ziyech oo arkiisu markan la xaqiijay iyo waliba Neymar ninkaas waa dadku waa waalay shaqo marabiyo adduun u dhaqda marabiyo waqtiya ku socda da'ba ku socota Neymar balan diyor buu qaadi doonaa Allah waa كان من شقراو مياه حالنا وحوس سمي دلشده ولا شيء كهر هذا الراسب وقعتي خذ بدأ يكون كله أو مهم أيام كسو هذا دون عيارها مانت ورد صاحب جنرال كوس بدنا نوصل كريسيا وش وقت كسته ساعات كسته معلومات كقدم بيع عيارها ما نقول سنة أصحابي مال كسته والدنيا ذيك شوكتان عياره هي مانت nimankii Arsenal baan xal arkayo Everton garaacay waliba 3 gool laween ay Arsenal gool ku bilaabay ba waxa dhacday in Gunners ay soo celiso goolka ciyaarta waxaana si qurxoon u caawiyay wiilka khatarta badan ee Bukayo Saka walla Bukayo Maxamed Qadar uu isaga kaftami jiray mooyaane laakiin Bukayo warkiisu waa weynaaday الله عنق لقتي سلسارية ولا لقطه عنق خبوا لق عن عادي حينه والله قضيات كذا ما ياي إن كتيح أيوس هري درت في عنو عن عادي حين كدب أباميون أي جول كولابتي ولا بقول كدقي بل سير ريتشارلسون أي جول كحجي أو والله بكدقي بل سير أباميون أي مركلو عليا جول أرسنال صدح جول في قرعة إن شاء الله كحلكوا بدأ عكته إيفرتون مركا جانرز هذا وحي تمادي أما أي سو جارين بوس كسجالات عيارها ولي مسودو عندهم هاي mar hore meel xun joogeen macnaa halahan waa wali soo dagaalamid iyo soo dhawaansho ku jiraan oo goor hore bay waxay joogeen booska waqti hore meel dheer joogeen had sagaalad bay yimaadeen marka Gunners hadda waxay leedahay 37 dhibcood Manchester oo xalay booska shanad saxatan waxay leedahay 41 dhibcood ee meel la kala jire 37 Arsenal Wolverhampton 39 Sheffield 40 Tottenham 40 Man United 41 wal ciidu meel ma jirto Chelsea 44 Leicester Cotton kuwa kale naga dhaafiya qayo laba gaar baan maleynayay marka Arsenal war meel ma jirtaanba kuwan ba xaq ah cadaalad ay dadku kula taru qaadataan laakiin kuwii hore iska dhaafa kulkulator ha u qaadan Arsenal ya hadii ba laga hadlayo kulkulator dhibca tirsi cadaalad waxay tahay inaad u dhibca tirsataan kuwan macnuhu kuwan ba idin dhow hada fiir meel idin kama kala jiro orgaas nawaalaysan Real Premier League intaas dhibca lagu sareeyo dhibca u tirsanaysan leedin aliful ma qayna ka sareysa waxa ka daayay kuwan u tirsada dhibca kuwan baad soo qaban kareysaan marka Gunners way soo socotaay waa ka bal maxaa laga yiri ciyaari xalay Manchester United waa laga yaabay maalin qasbay waxay markii uu goolkiisa ugu horeeyay dhalishay Bruno Fernandes waxay ahayd maalin goolkiisa 15aad uu dhaliyay ciyaartooyga Anton Martial xilli ciyaareedka waxay ahayd goolkiisa 16aad xilli ciyaareedka markuu dhalayo Mason Greenwood Manchester wax wala lagama qaban karo sanadkan walle Manchester ayar soo qabsanaysa waliba xalay waxaan arkay Joe Felix oo dhaliyay xalay goolkiisa ugu horeeyay La Liga tan September wala Felix back Joe Felix wala waa soo laabtayo ya ka hor kulanka Liverpool Felix ka Portugal ka ah ee mustaqbalka wiilka dahabigu hadda waa soo laabtayo Atletico way seelayaan waryahanadooda Alvaro Morata Diego Costa iyo Joe Felix xalay isagu waa dhaliya goolka waliba waxyaabaha kale iyana xalay laga bartay ciyaaraha iyo shalayba Madrid iyadoo haasad uu ka dhaawacmay yaani dhaawac kale marka la soo gaaray oo warku ay sheegayaan inta kale xilli ciyaareedku maqnaanayo waliba uu sheegay labada kulan ku soo aadan ay la ciyaarayaan kooxaha kubadda cagta Real Madrid ay la ciyaarayso kooxda City iyo waliba kooxda Barcelona ay haddana war kale u soo baxay kooxda kubadda cagta Real Madrid oo Rodrigo ayaa laga yaabaa inuu seego classicada todobaadkan dhici doonto todobaadka soo aadan dhici doonto waxa la Rodrigo waa la ganaaxi doona isbuuca dambe ganaax ku maqnaan doona El Clasico maadaama shalay Rosa la siiyay kulankii Real Madrid Castilla ay ciyaaraysay Real Madrid Castilla ay Rosa ku soo qaatay waxay ka dhignaan doontaa Rodrigo ma ciyaari doono kulanka El Clasico hasadna ma ciyaari doono kulay Madrid doqayada ku sii yaraanaya cunug mushkilo waa Rodrigo nin caadi ma aha Neymar ayaa isaguna xal Rosa qaatay xilli Paris Germany ay adkaatay oo ay badiyeen 4 gool saddex bay ku garaaceen kooxda Baqdo waliba hadda kooxda Tuchel waxay ku hogaaminaysaa 13 dhibcood ciyaaraha horyaalka Faransiiska balse Neymar ma shaqayste ay halkaas Rosa ku qaatay waxweeyaan ninkan inuu shaqo
shaqaysta mar rabo Soomaalidu waa idhibeen Soomaalida dhib lay ku anigu waxaan madaxa ka dareemo waan arkay anigu dadka qaar madaxan ka dareema ciyaartooyga aan arko waan arkay aniga ninkan inuu laacib yahay waan ogahay laakiin uu mashaqaystay waan ogahay ninkan anu marra waxaan ninkan meel ma tagay ninkan inuu baldoor gacan qaadi karo waqti dhow ma jirto aan iri dadka qaar Neymar arkan waa daldalana ma ninkan ma shaqaystaha sagaasha inuu iska gambiyo adduunka inuu gambis kuma rabo ka dhin wada gambiyo doonayo ma isaga Maxamed Qadar haye ma dhirtaa marka Maxamed Qadar baa dadka dhan wada mari kara habeenka dhan laakiin asagu wuxuu doonayaa Neymar inuu maalin dadku ay soo jeedaan dadka dhan wada maruu doonaya kan u gambi oo kan u gambi 12 nin maalin cadoy lama mari karo 12 nin maalinta cad yaa qoraxdu soo jeedo lama mari karo 12 nin balse hal nin baa mid samayn kara ma aha Messi Ronaldo ma aha waa Maxamed Qadar oo qol qura isaguna caadi uma sameeyee Real buu ku sameeyaa 12 in la mara walkii Real lagu sameyn kara mooyaane kubaddu cagtu waa natiijo weeyaan Ronaldo aragtisaas u farna baldoorku qaadana Messi waa farnina baldoorku qaadanaya waa natiijo ciyaarta marka ninkan gambiska faraha badan sameeya haddana dib wuxuu ku keenay walaashay waxaysa hadii baad aragto walaashi kulanka darteed buu ciyaaraha u ciyaarin walaashi darteed buu ciyaaraha qaar roos u qaadanaya waqtigiisa Barcelona markay dhalashada walaashi soo dhowdahay roos uu qaadan jiray waa dhaawacna u dhigi jiray waqtigiisa PSG markay dhalashada walaashi ay soo dhowdahay si ugu qayb galo roos uu qaadan jiray waa dhaawacna u dhigi jiray hadda fiiri dhalashada walaashi oo ku beegan Marso ayuu hadda roos si qaatay Neymar waa roosiisi labaad bal uu PSG ku qaadanayo intuu PSG joogo ninka la yiraahdo Kabembe baa ka roos badan tani markuu ku soo biiray kooxdan ninkaas baa ka roos badan saddex roos qaatay mooyaan Neymar wuxuu qaatay laba roos marka iska jir marba dad aragtay Neymar roos qaadanaya walaashi dhalashadiisa ma soo dhow walaashi dhalashadiisa ma soo dhow walaashi dhalashadiisa way soo dhowdaayo walaashi dhalashada walaashi waxay tahay bisha soo aadan marba walaashi dhalashadiisa soo dhowdahay saan roos u qaadan jiray Messi hataa kor wax laga xuri ninka ma shaqaystaan inuu naga ilaaliyo yiri maxay tahay marka walaashi dhalashada soo dhowdahay roos qaadanaya أخلي ووحن ولا يقانا وقت يسبيش وقت يسباش هو سمايا سي ولا شيء ذو قيب قاله وارواad dhalasho Maarso ku beegan buu hadda rasuul si qaadanaya arkana ma shaqaysta sara waxa kale ugu miisan inuu ciyaaraha iyana maanta waxa laga yiri ku jirnaayo maxaa laga yiri ciyaari xalay ka ninka la yiraahdo Bukayo Saka cimaamadiisa cunugu lama haysan karo oo waxa lagu leeyahay Bukayo Saka waa wiil yaab leh fantastic maalin waxaan ku sheegay inuu yahay ninka Yurub League ugu caawinta badan waxaan ku sheegay inuu yahay ninka ugu caawinta badan Arsenal waliba hadda xilciyadkan waxa lagu leeyahay Bukayo Saka 10 gool ayuu caawiyay tartamadoo dhan waa inka badan ciyaartooy kale kooxda Arsenal waa wiil tabistay jiriya 10 gool caawinaya warkan waa caga dahab kale Arnold iyo De Bruyne baan ku mashquulsaneen wiil dahab ka soo baxay Arsenal oo magaciisu yahay Bukayo Saka toban caawin buu hadda jooga laakiin ogow Bukayo Saka xitaa wuxuu ka caawin badan yahay hayshayni waa ku bariya xitaa wuxuu ka caawin badan yahay wariyaha ay sheegay yaaqay xitaa wuxuu ka caawin badan yahay wariyaha marada nagarida yaaqay xitaa wuxuu ka caawin badan yahay waar maradid baad u socotaaniyo xitaa wuxuu ka caawin badan yahay Masar lama joojiye Ronaldo ka caawin badan xataa u fiirso Ronaldo arbara waa dhacday maanta waxa lagu leeyahay Cristiano Ronaldo xil ciyaareedkan oo dhan tartamada oo dhan wuxuu caawiyay 2 gool Bukayo Saka waxa uu xil ciyaar 8 maalmood la soo dhaafay ku caawiyay 3 gool guud ahaan 10 gool wuxuu 8 maalmood ku sameeyay Bukayo Saka waxaan ku sameeyay xil ciyaareedka oo dhan Cristiano Ronaldo markaas waxay dhihi doonaan Maxamed Qadar adigu ma waxaad isba bardhigaysa hadda Bukayo Saka iyo Ronaldo wariya kama hadlayna mid taa kubadda cagtu waa kaftan kubadda cagtu waa baashaal kubadda cagtu waa records kubadda cagtu waa madadaalo marba maalin baa cid lagu maadiistay kullay record ka ku maadiistay Cristiano maanta waxa leeyahay odaygu goolka u cad mooyaan wax ma caawiyo 2 gool caawin buu xilciyaareedku meel la maraya halka wiilkan yar 8 maalmood oo la soo dhaafay tartamada ku caawiyay 3 gool guud ahaan 10 caawin marama cishna maanta marka waa kayo Bukayo Saka bariyahan waynu saakaysanay waliba Arsenal yaaba cimaamadeeda maanta garabka ku haysan kara Arsenal waa kooxda kaliya xil ciyaareedkan Premier League ka ciyaarta ee still unbeaten sanada 2020 koox kasta la garaacay hatta Liverpool baa la garaacay inama wuxuu soo taagaysa macna iska tuur cimaamada Arsenal maxaad rabtaa cimaamada iska tuur waxba garabka ku haysanine yani waxa lagu leeyahay kooxaha Premier League ka ciyaara tartamada oo dhan waatay kooxda aan laga badin wali sanadka 2020 Liverpool ma looda laga badin maxarta adiga tartamada oo dhan marka laga hadlo kooxaha Premier League ka ciyaara Liverpool ma looda laga badi dadka la badis ma loo sheegay waa laga badiyaa maalin kasta Stirgan risba kooxda kaliya aan laga badin ee Premier League ka ciyaarta sanada 2020 cimaamada lama haysta maanta waliba ninkii Beba ayaa bariyahan ku kacsanoo saddexdii ciyaar la soo dhaafay waxa leeyahay ciyaari la soo dhaafay ugu dambeey 4 isagu 3 gool lagu caawiyay
hal goolna waa uu dhaliyo ninku khatar buu yahay waliba Aubameyang xashal wuxuu soo gaaray goolka 16 ee Premier League hal gool baa la dhaliyay Fardiba dheer 17 gool still Aubameyang alla ninkaas Arsenal haysta ka waran ninkaas khatar badna Aubameyang waa dareemi jiray aniga inuu goolinta Premier League hore ka qaaday sanadka hore wax ka qaaday oo ragii buu la qaaday sanadkan fiiri waa loo socdaa Jamie Vardy hal gool buu sareeyaa marka waa kayo kuwa ka waxay ahaayeen ciyaari la ciyaarayo shalay waxay saad shalay mar kale oo taariikhda ay kubadda cagta Ingiriis ku dhacayso markii saddexaad in gool dhaqsi furitaanka hore laga dhaliyaa ciyaaro badan baa sidan u soo noqday sida Newcastle iyo Arsenal 96 Leeds iyo Charlton 2001 shalayna kulanka saddexaad waa taariikhda Premier League dhaqsiba gool lagu hormaraa oo Lewin baa ku bilaabay Games war ciyaarina maxaa wararka ugu miisan maanta tababaraha Manchester iyo ciyaartooyga Batikrouch aad u maanayaan Bruno Fernandes ninka la yiraahdo Batikrouch wuxuu leeyahay Bruno Fernandes wuxuu leeyahay ya waa hadiyad loogu talagalay kooxda Manchester United halka Ole Gunnar Solskjaer uu leeyahay nasiib ayaan ku leenahay inuu leeyahay inaan Bruno gacanta ku dhigno maxay leeyahay Bruno Fernandes shalay wuu wacdareeyay goolkiisa ugu horeeyay wuu furtay midna wuu caawiyay waxa uu leeyahay alla maxaa saxiix nagu dhacay alla maxaa saxiix nagu dhacayo suuqa aan kala soo wareegnay buu leeyahay ciyaartooy aad u khatar badan aad buu ugu faraxsan yahay tababaraha kooxda inay haystaan Bruno dhanka kalena tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa rajeynaya ciyaartooygiisa lagu magacaabo Mikel Arteta ninka la yiraahdo Aubameyang inuu kooxdu sii joogo Aubameyang waxa la filayaa xilaareed soo socda inuu kooxda isaga tago Inter baa raadinaysa kooxo kale Yurba wuxuu leeyahay waxaan ku rajeey weynahay inaan ciyaartooy ku qancino inuu Arsenal sii joogo Pierre Aubameyang kan waxa loo marinay sanadkiisa ugu dambeeyay kooxda balse tababar wuxuu leeyahay waxaan isku dayi doonaa inaanu kooxda ku qancino si aan ugu taginba waxa kale uu miisan inuu ciyaaraha maanta Thomas Tuchel tababaraha kooxdaas horyaalka Faransiiska waxa uu ku dhow yahay mar kale inuu kooxda Faransiiska la qaado horyaal kadib markuu xal si dheeraysto hogaanka Ziyech mar dhaweyd Chelsea way xaqiijisay balse hadda ayaa si rasmi loo xaqiijiyo Ziyech waxa hadda si rasmi loo cadeeyay in la gabagabay heshiiska wala Ajax wala Ziyech wala Chelsea wixii dhan wala wada dhameystiray ugu dambeyntii Ziyech wuxuu noqonayaa kooda bisha July ciyaartooy ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea ninka kanu reer Dutch-ka ka ciyaara ayaa weerarka Chelsea sanadka soo socda doonaya in uu aad u hagaajiyo marka hadda si rasmi baa loo cadeeyay oo loo xaqiijiyay si ay inuu noqon doono ciyaartooy ka tirsan kooxda Chelsea oo waxyaabaha dhidhinaayo hadda waa la dhameystir baa leeyahay wuxuu noqon doonaa ciyaartooy kale oo Dutch ka imaanaya oo horyaalkan soo galaya sida Chamistam, Ruud van Nistelrooy, Overmars, Robin van Persie, Arjen Robben, Christian Eriksen waxa ay hayeen kuwa ka ciyaartooygu fiicnaa horyaalka laga soo gataa balse waxa jira horyaalka kuwa laga soo gato galab noqday sida Depay iyo waliba John Lal Thomason oo Milan u ciyaari jiray maro Albak iyo Ogol iyo ya Alfonso Alves iyo Sam De Jong iyo rakolo dad xunna waa jireen roos qaadasho badan iyo kuwa fiican ku hor aan tirinayo kuugu fiicnaa waa rakolo holan ka imaanayo fiican dhanka kale Chelsea waxay warar ku leeyihiin waxay ku biirtartanka loogu jiro ciyaartooyga lagu magacaabo Mauro Icardi oo ah nin aad u khatar badan oo Icardi Inter ayaa iska leh biishi ama uu ku jooga laakiin Inter waxay isku daysaa biishi inay ciyaartooy rasmi ugu siixato Chelsea baa inuu doonaysa inay ciyaartooy ku fadhiya 40 milyan in suuqa soo aadan ay la wareegaan marka xaaskiisa ayaa wakiil u ah Wanda Nara hadaba ciyaartooyga ay isku dayay inuu xagaga dambe koox si rasmi u helo Chelsea baa ku soo biirtay uu tartankiisa kolobna waxa leeyahay Liverpool wuxuu ka dhigay Liverpool wuxuu ka dhigay koox la jeclaysto caadi ahayn qatar ah banooniga ciyaaraysa guuleysanaysa guulaha iska wata waa badinaysa waa Champions-ka adduunku waa Champions-ka Europe waa Champions-ka koox kasta Premier League sanadkan waqti hore ku guuleysanaysa oo caawana way ciyaarayaan Liverpool waxay ciyaarta Liverpool soo gali doontaa caawa yaani ka ilaabin saacadu marka ay tahay West Ham bay la ciyaarayaan 12 habeenimo waana England Premier League marka kooxdaas caawa ciyaaraysa kolob wuxuu ka dhigay Liverpool wuxuu ka dhigay Liverpool koox la jeclaysto ciidamadiidu Allah haysa karino qof kasta qalbigu ka qaadanaysa Arteta waa laga yaabay kooxda Arsenal si fiican ku soo celiyo todobadii maalmood la soo dhaafay Arsenal 3 jeer buu la kuuleysanayaayo Arsenal iyo Arteta isbaag dhan kale ciyaarta todobaadka ugu adag Champions League waa Man City iyo Real Madrid ciyaartooyga City oo ciyaar dibran wuxuu leeyahay hadaanu Champions League ku guuleysan weyno waxaanu noqon doonaa kuwii guuldareystayaasha lagu magacaabay shantii sano la dhahayo guuldareystayaasha baatiin wax matarayaal baatiin still waxaan la dhihi doonaa walaadaan qaadi weyna sanadkan Champions League wax matarayaashii Champions League ku wareersanaa baan la dhihi doonaa buu leeyahay Real Madrid sawaan ognahay buu leeyahay waa kooxda ugu awoodda badan Champions League يعني هستيرada ugu badan waxaan isku day doonaa in halka ugu tagno oo aan la ciyaarno waliba Benzema isna wuxuu qabaa in Man City ay tahay koox fiican oo leh tababar aad u wanaagsan balse anagu kama cabsanayna buu leeyahay baaskooda iyo ciyaartooda wanaagsan ciyaarihii iyo maanta waa naga intaan nabadgaliyo intaanu ka bixina ogow Liverpool hadda waxay u dhowdahay ku guuleysiga ciyaarahan West Ham bay la ciyaarayaan
laga yaabay caawow burhaantii Atletico Madrid inay soo burburisay baa laga yaabaa yaa dadku qaar mucaaradku waxay isleeyihiin caawana waa la celin karaa bay isleeyihiin war waxaad isleedihiin Simeone baa burhaanta ka soo jibiyo kuwa kan yaa burhaantii kooxdan Simeone waa soo jibi baad isleedihiin miya saas bay isleeyihiin kooxaha qaar waxay isleeyihiin nimankan jugtaan lagu soo bilaabay waanay soconaysaa bay isleeyihiin war waxaad bilowday in Liverpool ka shakisaan marka Liverpool waxay u dhawaan kartaa ku guuleysiga ciyaaraha Premier League sababtoo ah waxa lagu leeyahay 12 ciyaarood soo aadan horyaalku hadii Liverpool ay badiyaan 5 ciyaarood oo kamida iyagu waa Champions England markii ugu horeysay tan iyo 1990 marka Liverpool West Ham waxay u baahan tahay inay ka badiyaan waana West Ham oo todobadii ciyaar la soo dhaafay aynu marna guuldara ka soo gaarin shan ay ka badiyeen labana bareejo tahay waliba Moyes oo kooxdaas watana way jecel yihiin oo aad bay ugu helaan sababtoo waligiiba Moyes kaga maanu badin Liverpool Anfield 15 jeer marka Raiders waxa caaw u bilaabanaya dabaaldega guulahooda u dabaaldega Premier League markii ugu horeysay oo ay ciidu abaar baxayso muddo 30 sano aynu wax horyaal qaadin marka 12 kulan u dhiman shan guul haday ugu baahan yihiin marka geedka iyagu baa geedka dafay oo iyagu waa champions ogowna caawa Liverpool waxay bareejeynayaan rekoorkii Manchester City dhaxalba mar bay u socdaan rekoor la jibinaya maalin kasta maalinka rekoor la jibinaya maalin rekoor la jibinaya kii Arsenal loo socda ee 4-9 kulan kii City caawa la jibin karaya ogowna mid kala u dhiman oo ah in horyaalka ambiti ku qaadaan wenger xisaabtaadku wuxuu yiri taqaara kuwan ambiti keeni waajibin doonaan buu leeyahay mana jeclaan lahayn buu leeyahay laakiin way awoodaan buu leeyahay kuwa kan balse ugu caawa waxay jibinayaan rekoorkii Man City baa ahayd kooxda qura ee taariikhda horyaalka Ingiriiska iyo Premier League ba 18 ciyaar xiriir adkaatay nimankan hadda waxay soo badiyeen 17 kulan xiriir ah City mar dhawood waxa badbaadisay Manchester oo miyay caawidi badbaadin doontaa kooxda West Ham yaha ma ogtahay kulankii Manchester United Premier League ay baraje la galeysay kooxda kubadda cagta Liverpool wa halka baraje Liverpool ay gashay kulankaas Manchester Liverpool waxay u socotay inay bareejeyso rekoorka guulaha xiriirka ee Man City markaas Liverpool waxay soo badisay 17 ciyaar xiriir ah kulankaas ay ku faysay ayay rekoorkii gaari weysay kadib waxay bilaabeen haddana inay bilaabaan in 17 kale xiriir ay soo bilaabeen inay guuleystaan way soo guuleysay 17 ciyaar xiriir ah waxay u socdaan marka ugu dambeyntii inay bareejayaan هذا ريكورد كستي كوفاني سيدحيان أنا قباح كوحدة قرى 23 عيار حريات كهذه بريمير ليج عاو حيدوني بريتشيانو oo waxay caawo hadii ay badiyaan u noqon doontaa in sida ku bareejeynayaan rekoorkii xiriirka Man City oo 18 gool xiriirka gaartay taariikhda Premier League kuwan caawa ay la simanayaan rekoorka haday caawo badiyaan bareejeynayaan rekoorka ka xiga haday badiyaan rekoorka iyagu baa qabsan doona marka caawo City ay wala rekoorkaadi waa loo socdaa iyana Arsenal ay rekoorkaadina waa loo soo socdaayo 4 kulan abitika aha oo Redis manu laga badin 43 ciyaar la soo dhaafay oo guuldar waxa ugu dambeysay January 2019 waa January 2019 waxaanu maraynaa 2020 January-deedaan gudubnay Febraayo baanu joognaa Maarso baa noo muuqata horyaalkiiba gabagabow ku dhow waa waxaan wax laga qaban kariyaa ma jirta miya war ma jirta miya koox Simeoneysa oo kuwan ku Atletico Madrid ma jirta miya kuwan wax ku Atletico Madrid way ma jirta miya shaqa marabtiin marka la soco nimankan guuldar waxa ugu dambeysay habeenkii City 2019 bishii January tani markaas 43 kulan bay ambiitihiin caaw waxay u noqon doontaa 44 kulan ambiitin hadii aanu laga badin rekoorkii Arsenal marka aad baa loogu dhawaanaya